الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى جعلها وكل تيجوا على ونعكسن مقال كاري ومقال كودن بي وأن كجها لي برشة باوربوينت كا كورسين هالك أيها كوقت هاي وشورد ما تبي نسوق بكبودي إلهي أيام هالسكرة كل يعني وحيته فرحت هذا يعني فرح سنين كورسات ماتي وهرنتين waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala marka horena i waafajiyay inaan koorsaan bilaabo inaan dhameeyana waxa weeye awooda iisi Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma iskale alxamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazid ayaan marka xita waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadii mar walba ku xirnaa channelka ka profile course mar walbana dhiirigelinta garab istaaga halka wanaagsan ee mid kor u qaadida iyo inta bala garab taagna waxa leeyahay akhyari aad iyo mahadsantiin waan ka madahirnayaa runtii dadka ku xiran ka profile course waa dad qalbi fiican aad u wanaagsan mar walba waxa soo gaara comment aad u fiican ducaa hada ducada waxa fiican ma jiro in gabar ayaa wuxuu yiraahdaa soo ninka duca qaadan jiray dad uma khayr roona marka ducadu waxa inaba caadi marka ducadeena iyo dhiirigelintiinu iyo amaantiina intaba aad ayaan ugu mahadcelinayaa khayr badan waxaan ka buuxdaa wada qalbi fiican oo wanaagsan gabadhiyo wiil intaba leh aad ayaan ka mahadcelinayaa khayr mintaas aan runtii ina koorso bilowda dhameysana waa hawl adag weeye markii dhinac laga fiirsho waayo waxa soo gudbinaysa in wax sugan inaad diyaarso inaad waqti geliso inaad waxa weeye kasoo baaran dagto waa hawl adag weeye marka hawshaas la dhanna aan markii hal qof ku soo duceeyo ama waxa asfarta hal qof ka faa'iideysto wax weeye daalkii iyo tacabkii uu ka baaya aan waxa dhici karta muuqaaladan hadda aan tuubayo inay waqti badan joogaan dhalinyaro badan ka faa'iideystaan dad badanna ay mataqaana ay micin iyo aan aqoon u noqoto marka meesha daga socotana waa ka profile course aan kusoo gudbiyo koorsooyinka freega ah course kaasuna dhamaantood waxa laga qaadi maayo waqtiga adantuna waa baran kartaa midaasna waxaan u sameeyay waa dadka inay ka faa'iideystaan lacagtan awoodin run ahaantii koorsooyinka ku jira website-yada ku jira dhamaantood waa lacag haddana waxay saddex waxyaabo isku darsadeen ayagoo lacaga iyo ayagoo laga yaabo inaan si fiican ugu fahamsiin waayo qofka markii uu koorsada soo galo waxa dhici karta in hal mar isku dhex khaldo halka mid oo rada ka dhaca uu ku wareero mid saddexaad oo ah waqti kooban ayaa lagu siinayaa bil 2 bilood kala bacdo laga xirayaa waa adoo game oo wax fahmin ayaa mataqaana aan laga xirayaa marka koorsooyinkan hadda aan soo diyaarshay runtii waxaan soo diyaarshay qaab aad u fiican aan qurux badan min bilow ilaa dhamaad qofku maalin bay step maraya wuxuuna waa qaabka qofku macnaheedu wuxuu kala fahamsiyo way kala duwan yihiin marka kale waxaan misanahay aan qaabka soo gudbiyay qaab u tahay qof fasan uu fahmi karo way jiraan dad iga fiican oo iga fahansiin badan laakiin waa kale aniga shakhsi ahaantiisa aan misanahay waxba soo gudbintayda qof marka wax fahansiinayo waa aad iyo fiican tahay taasna dadinka marxadka haddaba saaxiibada qiimaha badan oo aan runtii ma dheera mar inuu qalkan ku dheeraado waa inaan hambalyeynay dhamaantiin aad ayaan ku hambalyeynay madama course-kii aad la socoteen oo maanta soo gabagabay Allah subhanahu wa ta'ala ayaan mahad iska leh marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad insha Allah waxaan jeclahay inaan ku xujiyo koorsooyin kale hadday noqdaan Windows 11 oo yaantii horeba say PowerPoint-ga aan cod u qaadnay oo PowerPoint ku guuleystay marka hadda ayaan soo gudbin doonaa koorsooyin kale la oran jiray iyadana filmar Windows share hadday ii suurto gasho labada course waa dadka soo saaran yihiin insha Allah inkastoo inay waqti qaataan dhici karto laakiin hadda waa isku daxashan doonaa inaan Windows-ka iyo filmar Windows share soo gudbiyo أنا نقول إحنا كعصنا يا صاحبي قيمة بدنا أنا مقال كثير لي جالسان أو سي شر جالسان أو مقال كأجل قطعة مقتشر كثير فافو أنا بدي أنا مقال سو كري وحسوا بس لي تذكر إن لو برا لسي فافيو لسي لقى قطعة ده أنا كتحشوا وش أسكله نبي حسنا عليه وسلم الدال على خير كفاعله قف قد خير تسيا وقف بقدرين يسوي سميه كل مركا waxa hubaal ah oo mar wadoonta in jeer yara badan oo doonaysa koorsooyin lacag la'aan ay bartaan koorsooyin free ah oo si fiican loo fahamsiinayo oo fudud inay bartaan marka aan qof walba oo muuqaalka halkan soo gaaro waxaan ka codsanayaa in saaxiibkiis ugu yeero inuu ku share gareeyo muuqaalada aan soo galiyo halkan inuu ku share gareeyo gurbada ku share gareeyo inuu Facebook ku share gareeyo inuu asxaaban si gaarsiiyo runtii waxaan oran karaa Nabii sallallahu alayhi wasallam aan la yumin ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi qofku laga helmayo iimaan dhameystiran ilaa uu la jeclaa walaalkiis waxa uu la jecel yahay naftiisa marka anigu wadan koorsooyinka free ka dhigay adinkuna faafintooda waa inaad waxa way free u noqotaa ana waa free ba ka dhigay adinkuna faafintooda waa inaad waxa way
u feejinaataan oo muuqaalka soo dhigo subscribe-ta iyo share-ta iyo like-ta aad dabada u sii qabataan sii share gareysaan asxaabta la sii wadaataan oo qof walba saaxiibka ugu yeerto waayo adar ala khair ka faa'ilaya meesha taala anigana waxay noqonaysaa dhiirigelin iyo farxad ay noqonaysaa qofkuna hadii la aan dhiirigelin waxba ma qaban karo Soomaalidu qofka marka waxa la Afrikaanka hore wadamada dib maray marka arkan qofku inuu hormarayo qofku inuu doonayo inuu hore u tilaabsado waxay ku dhigaan baariyada ayr bu fashil ma wadamada hormarin waxa la qofka fashilka ayay ku yaala waxay u geeyaan cagaara soo wax fiican oo ka bacna hore buu ordo marka anigu Soomaalidan qofkeen guuleysta ayaan ka daba shaqeynaa ilaa ka waxaan ka jarno wadamada hormarin qofka fashilka ayay dhiirigeliyaan waxa la qabtaan hormariyaan waxa weeyaan amaanaan si fiican waxa weey wanaajiyaan ilaa uu ka guuleysto marka waa farqiga Afrika iyo kala dhaxeeya iyo wadamada hormaray marka wax dhici karta hal community ma hal ficil oo sameysay in qof dhan qalbiga ka jibsan salaano kale hadii wiil oran jiray Yasla Umar oo kale oo uu tabarka ahaa dad ba si wax uga sheegayeen u caayayeen buu niyad jabada ku dhaco waxmanay hal sano faraaka qaaday taabkiina taas waa maxay muuqaal soo diyaarisay waqti badan ku soo bixisay aad waxa weey Ilaahay ku roon yahay oo yaraan 4 daqiiqo dul fadhiday ku diiday marka soo gelisid qof baa wuxuu soo qoraya comment fudud laakiin qofka loo qorayo waxay ku noqonaysaa buur ku dunto kale marka hal kelmad oo soo qortay waa qofna lagu dili kara qofna lagu nooleyn kara hadalku wax sahlan maahan marka hadalada soo qoraysaan waa qaybna qofku way dilaan qaybna qofku way nooleeyaan marka hadalka soo qorayso waa inaad hadaad qofka u qorayso iska ilaalis wuxuu doonaha ahaado ama aniga channelkeena ha ahaado ama qof kale ha ahaado ama hadalka afka ka soo baxaya waxa la hadalku waa sida qoraaradii oo kale qoraaradu markay jabto dhawaq yar ay sameeysaa laakiin markii uu ku jabto waxay ka tagtaa cadow fara badan qof soo mar way goysaa waa masiibo badan marka hadalkuna marka ku hadlayso waa dhawaq yar laakiin saameynta uu ka tagayo iyo qofka waxa uu ku reebayo waa wax intaas soo joogaya inta badan waxa maqashaa hebel baa waxa laga warshay hebel baa wuxuu yiri waa boqolaal sano ka hor qof hadal uu yiri ayaa maanta la hayaa laakiin ficilkiisa lama hayo ficil inta badan la iska ilaawaa marka waxaan taa ugu leeyahay marka qofka la hadlayso kale ama comment uu qorayso kale ama la khadaabiso kale 100 mar ayaa la iska fiiriyaa waayo kelmad tagtay ma soo laaban karto hadalka inta afka ku jira ayuu xakameyn leeyahay taas oo iga waano oo qofka Allah la saxaaska haduu ahaado walaalka haduu ahaado carruurta haday ahaato hooyadaada inuu tabeelka haday noqoto marba hadalka waa inuu hadal xakamaysan yahay marka inta badan muuqaalada aan koorsooyinka dhameeyo kale dhowr waxaan ku soo daraa waanooyin iyo waxay gelin ku soo daraa marka saaxiibada qiimaha badan oo halahaas ayaan ku soo gabagabeynayaa hadii wax ugu wanaagsan qof loo sheegana waa Ilaahay inuu ka cabsado taqwa waa inuu ku sallallahu alayhi wasallam inuu cibaadadiisa iyo amalkiisa badiyo waa inuu ka dheeraado qabyaalada iyo qurunka iyo wax walba ku keenaya fadhiisan dib dhacdo kale marka waxaan kaga tagay dhamaantiin oo kale waqtigiina inaan maareysaan inaan noloshiina xakameysaan inaad wax weey ka faa'iideystaan waqtigiina alwaqtu ka sayf ilam taqdac yaqda'uka العمر على وقت كسيف وقت أواسي سيفتي وكل هذا نقول ساق قوينيا مركب واحد كجت جيا عن وحال يري هذا ده حال ريبي كراه أو نقول الانتقال نتبين قفكو مع الماء يركع أو هيستو غذاها ساعدها البرغس هيستين أيها بريبها كنا قلنا سقف مجعله شرف له قيمة له أما كنا قلنا سقف قيمة له شرف له واحد ضد ما الله وقت أضوء ضياع يسيد وفيسبوك سوشيال ميديا أخو ضياع يسيد قف ساق جاي كفاية السنة qof adiga kula mid ayaa ka faa'iideysanaya ka bacdina uu ugu dhaafayaa bilina waxa ka soo xidigaha maraya dad kale leeyahay waa bilyaneero waa macallimiin waa aqoon-yahano waa dad noloshooda hormariyay waxay haystaan 24 saac adoo maxay haystaan 24 saac laakiin maxay ku kala duwan yihiin qofna waqtigiisa wuxuu ku bixiyay meel qiimo leh qofna waqtigiisa wuxuu ku bixiyay waxaan qiimo lahayn hadhow maxaa soo baxay marka qof walba man zaraca waxa leeyahay xasada qofkii wax beertana wuu goostaa qofkii maanta hadee Soomaaliya kuma maadaan ninkii tintiin beerta timirka ma goosto ana waxa weeye hadii waqtiga aad ku dhumisay meel aan faa'iido lahayn qabyaalad aad ku dhumisay social media Facebook iska gal comment iska qor muuqaalada TikTok iska ciyaar waqti aad ku ciyaarayso waqti noloshaada ku horumarin lahayd waqti aad noloshaada ku qurxin lahayd waqti bari ka maalin jannada aad ku raadsan lahayd Ilaahay wuxuu leeyahay wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin balo diyaarshi dadka jannada galay Umar ibn Khattab أو بكر صديقي خالد بن صحابي النبي وشرفت العيد قيمهم waxay ku yeesheen waa maalmahoodii ayay ka faa'iideysteen maalmaha ayagu lahaayeen ayay ka faa'iideysteen jahli abilhabna jaaniskooda iyo waqtigooda ayay dhumiyeen marka fariiqo filjanati wa fariiqo fi sa'ir bi kala noqdeen marka waxaan kaga tagayaa waqtiga oo haysato hadaa ku ciyaartana
بري مروق هرتالا هدا كفايستنا فرحت بك هرتالا قف والبنا أو يمكن صارن تاجر فقير waxay haystaan waa 24 hours 24 saac bay haystaan ama ka faa'iideyso ama dayac kolay waa waqti qaali waqti aduunta ma soo laabto waqtiga lama bedeli karo waqti waa wax uu qaaran qofka uu haysto marka dhimatona waxa lagu horkeenayaa acmaashaada adduunka waxa alla waxa sameyn jirta dhowrta imaanayaan haddii xumaayeen iyo haddii samaayeen intaba maanta waxaad awood leedahay waqtiga inaad ka faa'iideysto noloshaada aad bedesho qof qiimo la noqoto aad iska dayso caajiska aad iska dayso waxsiga aad iska dayso social media aad iska geliso bilaan macnaha iskaga soo baxayso iska gal iska soo toos hadda maanta noloshaada qiimo weydo biri waxa ku hor yaala nolol aad adigu raali ka ahayn waayo waqtiga maanta waxaad ku dhimisay wax aad raali ka ahayn waxaan kaga tagi doonaa dawladda qiimaha badanow sidaas iyo nabadiino koorsada xigta ayaa noo balan inta ka horeysa qalaha la garay hal si shir garay saaxiibaha lagu yeero وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان inta badan muqaalada la shir garayo waxa weeye aan si faafiyo waa xumaanta laakiin muqaalada wanaaga ah oo cilmiga iyo aqoonta ah lama faafiyo waxaan lagu faro faraha la qaad bulshaduna hadda inta cilmiga qiimeyso ay qiimo leedahay Soomaalidu cilmi ma qiimeyso runtii wax yar mooyaan waayo taan kan ka baahato mas'alo cilmi ah ama teknolojiyada ku saabsan oo akhriyayso ayuu taab ka helmayso waxa sharaxay waa hindi iyo dadka kale Soomaalidu teknolojiyada ama cilmiga oo kale waxa mana boqolkiiba 0.1 waxa ahayn baa ka sharaxa wax yar kuwaas markay waayeen wax dhiirigeliya markay waayeen waxa weeye daawada wax xagga u soo qaaqay tii faraha qaaday hadda waxaan garanay dhalinyaro badan oo waxay soo gudbin jireen waxyaabaha teknolojiyada qiimaha kale waxa kamid ah channel oran jiray SomTT channel in badan aan ku xiran wax badan ka faa'iiday isoo xidig u lahaa markuu wax daawada waayay ayuu laba isku dhuftay oo filmaanta uu gudbiyay halkaas inuu waxa weeye filmaanta soo turjumay halkaas uu galay waayo wax daawadu garan waayay marka dadkuna hadba waxay qiimeeyaan ayaa ilaahay ku qiimeeyaa daawada qiimaha badan oo aad ayaan ku salaamayaa wixii aan khaldanaatay ka ahaadeen wixii aan saxina ilaahay fakintiisa ka ahaadeen السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته